بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا له سوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دان لا الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت دمت الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستو annagana allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. qodobka koowaad, xogii ugu dambeeyay dagaalkii bariga dhexe kalmadaan ka oranaya. labo, shirkii ay wada galeen xasan sheekh oo hal maalin uga dhiman tahay muddo xileedkiisii oo ku eg bari iyo mucaaradkii oo ay hogaaminayeen sheekh shariif iyo deni iyo xogihii ugu dambeeyay iyadana kalmadaan ka oranaya. qodobka saddexaad, wiilal iswaraystay oo isku group ah oo idaacad ay wada leeyihiin furtay, Fahad iyo Cabdinuur, iyagana kelmad baan ka oranaya. aan ku hormaro, Trump wuxuu booqasho ku tegay Beijing China. kor wuxuu u sheegay inuusan waxba uga baahnayn caawimaad ah. at the same time oo ku saabsan arrinta Iiraan iyo Hormuska. at the same time wuxuu kor u yiri Hormus inuu furnaado caalamka oo dhan bay dan ugu jirtaa, waa in laga wada shaqeeyaa. hadal isburinaya. waxaa kaloo garab socda Marco Rubio wasiirkiisa arrimaha dibadda oo shir gaara kula jira madaxda iyo maamulka China iyagoo ka codsanaya warna kala qabta. laba nin oo hadda ka hor aan idiin sheegay oo diriray, nin xoog weyn baa nin caata oo tabar yar laakiin mintid ah la diriray. marka waa uu garaacay, waa tumay, laakiin waa ka hari waayey. saakoo kalaa la isgalay duhurkii, kor buu u qaaday, waa sidaa cirku saasuu u sidaa kulligiis. buurra buu la yimi isagoo sita. markaasuu wuxuu warmaa waxna kala tiraahdaan, war hana la kala qabto. markuu dhigaba intuu ku soo baxo buu dhagax iyo ul iyo wuxuu heli karo dhaawac ayuu u geysanaya. waa tumaa kaas kor loo sida wuxuu leeyahay soo mari ma dhigi doontid. waa nimaan haray. Iiraan waxay ku noqotay Maraykanka sidaasoo kale. allow yaa marna kala qabta, allow yaa marxaladda dib ugu celiya dagaalkii ka hor bay ka taagan tahay Trump iyo tiimkiisa. dhanka kale UAE baa iyadu waxay noqotay qolada keliya oo lagu shaabadeeyey Israa'iiliyiin inay yihiin, loolana dhaqmayo sidaas. waxaana ku soo baxday oo ogaadeen Chinesku, Iiraaniyiintu waxay ogaadeen xogo badan oo jaajuusnimo ah oo gudahooda ka jira, oo ay ka mid tahay jaajuusnimadii lagu laayay madaxdooda inay ka shaqaynayeen imaaraadku waa waslad faasida oo caalamka carabta iyo dalalka muslimiinta ku dhex jirta, ayna leedahay kuna shaqaysato isticmaashana camiilna u ah Israa'iil. marka dhibaatadooda muslimku waa ku farxayaa, ka nixi maayo. hadda waana dad muslima. marka waxaad geysato shaqaysato abaalkeeda leedahay. walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli. iyaga kelmadaasan ka oranaya. qodobka labaad, waxaa shir maalinkii labaad ku wada jira mucaaradkii iyo xasan sheekh oo hal maalin uga dhiman tahay muddaxileedkiisa oo ah bari. wax badan buu isku dayay xasan, waa u shaqayn waayeen. kelmadaan halkan ka iri oo ahayd madaxweynow, intaadan mukulaal noqon iyo bisad, intaad mandate-ka leedahay oo libaax tahay oo kursigu ilayn mandate-ka iyo kursiga macna kuu yeelaya haddaad qof tahay, qofkaagii unbaa tahay. intaysan kaa dhammaan qaado heshiis siyaasadeed. oo uu maqli waayo wax kale iyo lacag uruursi uu ka doorbiday ayuu maanta wajahayaa. wuxuu isku dayay inuu ciyaaro gameka ah hal sana ii hartay. sheekh shariif baa wuxuu ku yiri sida la sheegay, adigaa duuban adoo 5 jeer ka hadlaya oo leh 2026 bisha May 15keeda baa muddaxileedkaygu ku egyahay. iskama qoran kartid mandate-kii lagu siiyey intaasoo ah. dadkii ku doortay kuma ay dooran inaad sanadka dambe sii xukunto dalka, waa kaa dhammaatay. waxaa kaloo la sheegay Siciid Deni inuu ku yiri annagu 2 beri kadib, maalinta beriya kadib oo ah 15 oo jimco ah, wixii ka dambeeya waxaad noola mid tahay former presidents Sheekh Shariif iyo Farmaajo
iyagaad la fariisanaysaa oo la level tahay dadka mucaaradka oo tirada badan baad isku level tiin wax cod ah leedahay lama arko saacadaha ku horay hadaa go'aan qaadanaysa go'aan qaado inta ka horeysa baad chance leedahay oo berri ka horeysa saasa keentay in galabta la isugu soo noqdo shirka wali wax ka soo baxay ma hayno laakiin waa ku khasbay Xasan inuu dhulka dhigo doorashada in la yala hadlo ogolahay mar waa isku dayay inuu yiraahdo ma garanaysaa marba aad la isugu buuqay international community ga dhex fadhiya xalana lagu shiraya wixii aan ka digeynay intaas ahayd intaan la idin dhex gelin Xasanow oo aan dibadda wax la idin ka yeerin wali waxay ku handadeen Xasanow adaa dalka madaxka haddii aad qaadan weyday heshiis siyaasadeed yaa heshiis la tahay haddaa heshiis siyaasadeed qaadan weyday annagu waddanka waa ka baxaynaa dadkana waxaan u sheegaynaa inaysan nabad ahayn mana ku soo noqonayno gacantaaday ku burburaysaa weeye another words hadal kale oo ay si kale u dhigeen aday gacantaada ku burburaysaa adaana ka dambeeyay inay Soomaaliya burburto dadaaladii la soo geystay oo horena ay khasaaro noqdaan kelmadaas keentay marka inuu yiraahdo aan isu soo laabano markii hore technical team aan dirno sanad baa ay haray doorasho qof iyo cod la aaday waxa la yiri waxaan aad qorqoratay adaa qortay aday ku shaqeeyaan doorasho qof iyo cod oo aad sheegtayna waa aragnay waxa aad ka wadi mana noo shaqeynayso cidina kugu raaci mayso anaa geemka ciyaaray arbitrana ka anaana go'aan ka gaaraya waad aragteen Shariif Xasan baa kaga guuleystay Madoobe Baydhabo oo bari macnaha in la sii diyaariyo isagu kursiga lahaa Madoobe madaxweyne noqonay Shariif Xasan oo la tartamay baa kaga guuleystay waa ninkii loogu nabcaa baa ka guuleystay markaas la yiri xudur baa dhiman oo aan wali lagu shubin codadkoodii oo meeqa 34 kun baa codaysay baa la yiri 34 horta ma degan tahay inay joogto oo ay codayn karto u kaadiye horta ma degan tahay tuulada xamar oo dhan baa waxa ka codaysay 90 kun iyadoo milyan qof ay is-register gareeyeen marka waa la arkay waxaas ku shaqeynayaan shirka marka wixii ka soo baxana waa ogaan doonaa laakiin Xasan saacada uga dhiman mandate-kiisi wixii inta ka dambeeyana dadka kale la cod yahay wax awood oo gaar ah u leeyahay ma jirto wax xurmo gaar ah ay siinayaan ma jirto inta ka digeenay intaana ahayd mar hore inuu heshiis gaaro last minute ku aqbalaa markaasuu salka dhulka dhigtaa kelmadaasna intaasaan ka oranaya qodobka saddexaad waxay soo raystay Fahad iyo Cabdinuur laba wiil oo soo adeer waxay iska waraysanayaan ka sheekeynayaan wax ka sheegayaan dhaliilayaan campaign-ka madaxweynihii hore oo ay la shaqeeyeen oo labadoodaba wax ka dhigay oo madax ka dhigay oo dadka baray xogahan ka hayo dadkan dhalinyarada is waraysanaya ma wada sheegi karo mana sheegayo qaar badan waa qarinaya kan xoga badan baan haynaa Cabdinuur mar hore isaga laga saaray laakiin Fahad wuxuu noo sheegay oo si public u sheegay inuu iskaga baxay isagu nabad iyo nolol su'aalaan marka weydiin doonaa isaga Cabdinuur waxaan leeyahay shaharkii farmaajo uu ugu deeqay agoonta adigu meel ku sheeg inta kaliya waxyaabo badan baan ka hayaa laakiin intaas ku dhaafmay in dhalinyaro siyaasaduna ma aha reer hebel adii farmaajo isku reer hebel ma aynaan ahayn labadiina iyo farmaajo isku reer hebel ma aynaan ahayn haddana wuxuu idin siiyey mansab iyo maamuus intaa ina dhaaf dowladnimada saasa dowladnimadu qabiil maaha waa is-afgarad iyo isfahan waxaa ku soo haray Fahad doorashadii 2022 wixii aad ka geysatay waa is ogtahay intaa dhaafin maayo xogahan ka hayana ma wada sheegayo laakiin qaar baan sheegaya Xasan Sheekh Maxamuud oo aad si public u tiri principally baan kala duwanahay mana wada heshiin karno isku siyaasadna ma noqon karno inta jeer aad lugaha qabsatay oo bariday oo wada kasta u martay waad ogtahay hal ujeedaa tiri waa kale farmaajo si aan u defeat gareeyo oo aan ugu qoonsado inuu madax noqdo cid kastaan u maraya Xasan inaad isu daadisay konton jeer dhulka isu dhigtay lawyaha qabsatay oo uu ku diiday madda waa u sheegaya meel kasta u martay marka ma aha siyaasadaadu mid ku dhisan principle oo mid wax kale ku dhisan taada hore noogu sheegay tarno waa ka soo horjeedaa waa isdiido iswaafajinteeda baa laga rabaa qodobka labaad هذا كور هذا عن إريو كلمة بحياة ترتفع حاسي ما فسرين هذا فسرها
ninkaa odaga ah oo tartamaya oo aad raacday oo saacid la yiraahdo oo khiyaarka ah oo rabay inuu noqdo madaxweyne noqdo maadaama murashax u aaminsan isagaa murashax maxaa adigu meel walba uga hadashaa maxaad intaa wax u qoraysaa haddii aad kaambeynkiisa ka mid tahay maa ku ixtiraamtid inuu isagu noqdo inuu ku qaataa khalad ahayd nin step aside inta la yiri diiday inuu qaataa khalad bay ahayd maxaa yeelay dee daamajkiisii buu wataa oo la imaanaya haddana waa kaas cid xakamaysa laleeyahay isagaa ka horeeya oo isagaa front runner ah isagaa moodaa inuu tartamayo falxaasid kelmaddaan u bixiyey waxay ahayd haddaan idiin fasirayahay wuxuu yidhi waxaan rabaa ninkaas nin aan ku xumeeyo cid kastoo aan ku xumayn karo inaan heshiis la galo qof walba aniga aimkayga siyaasadeed waa farmaajo inuu xilka waayo that's it intaa ima dhaafsana macnaha ay leedahay waa xaasidnimo oo farmaajo soo maahay ninkii ku siiyey mansabkii aad dadka Soomaaliyeed kugu barteen soo ninkii dowladnimadiisii oo dhan adiga dartaa u shiilay oo imaaraad iyo la diriray Djibouti dartaa kadib markay dabceen inay kugu dilaan airportka Djibouti ninkii dhuuxa kuu shubay soo maahayn ninkii kugu dagaalamay oo hoosta ku gashaday dadka localka iyo dadka dibadda ay ku kala dhinteen adiga soo maahayn ma abaal buu kaa mudan yahay mise uu kaa mudan yahay dhibaatayn iyo inaad tiraahdo waxaa ballan ii ah inaan ninkaa ka takhalluso oo aan la simo dhulka saacid waxaan kula talinayaa ra'iisul wasaarihii hore madaxweynaha hadda u tartamaya inuu iska kaa xakameeyo isagii kaambeynkiisa ayay u taallaa inay qaataan waa tale free inuu iska kaa xakameeyo haddaad shaqo qabanaysidna aad la qabatid adigoo aan muuqan isagu uu muuqdo isagu soo horeeyo isagu hadlo wixii political statement isaga loo daayo waxaan kaloo adigana kugula talinayaa haddii farmaajo ay wax idin dhex mareen oo aad tagtay adeerda iska tag waxaa tiri nabadiina nolol waxba ma laha de waxaan waxba ahayn lagama sheekeeyo haddaysa culays kugu ahayn oo aadan u jeedin inay soo noqonayso maxaa uga sheekeynaysaa oo waxaan jirin baa laga sheekeeyaa maba jirtaa tiri oo haddaysan jirin dee adeer maxaa kugu mashquuliyey hawlo kale ma yeelatid nabadiina nolol haddaysan jirin qof wax aan jirin ka baqa oo intaa wax ka sheega oo intaa dhaliila oo intaa dhibaateeya waxaan maqli jiray mardhoof iyo marduul dadka qaadka cunaa waxay dhihi jireen mardhoof iyo marduul midna lalama qayilo trip kasta maalin kastoo aad wada qayshaan wuxuu kaaga sheekeynaya tripkii uu dhoofay kii mardhoofka ahaa waagii aan dhoofnay annagoo halkaa marayn haddana kii duulayna wuxuu dhahayaa goortii xabadda laysku bilaabay halkaa ay rasaastu ka dhacayso maantoo dhan intiiba kugu celcelinaya wixii oo dhan baa xafidaysaa marka dambe waa inaad tiraahdaa war waxaan waa ma ujeedaa siyaasad cabdinuur iyo fahad ay ka sheekeeyaan oo farmaajo ka weynayna ma jirto waxaan kula taliyey aan kula talinayaa fahad bahasha ka ritaayar gareega ciyaantiina waa kugu yiri siyaasadda ka naso waana lagugu yiri oo dad badan baa kugu yiri I don't believe inay wax kuugu hareen adoo ruki ah oo cusub baa bilowday inay xagxagatid dadkii ku aaminay oo wax kuu dhiibay oo mandate-ka ku siiyey yaa isku kaa aaminayo dambe qofka mandate-ku siin doona waa kee waa qof desperate oo aan meel kale u ciirsado aan lahayn dabcan laakiin qof rajo ka qaba inuu dal iyo dad dhiso kuguma aamini karo waxba qofka waa in la aamini karaa oo sirta uu xakamayn karaa oo xogta hayn karaa oo khilaafka xataa dhexdiina aad xakamayn kartaa hayn kartaa hadday nabad iyo nolol tahay wax aan jirin fahadow iyo hadday tahay wax jiraba kolley culays bay kugu tahay oo kuu jeedaa fal xaasid bayna kugu kaliftay iskaga naso siyaasadda inahaasaan oranayaa billahi tawfiiq wixii soo kordhna waa isla soconaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi